بسم الله الرحمن الرحيم مادة بيولوجيا جابتر كيني فلاورين بلانت waxaanu baranaynaa jabtarka cashirkiisa koowaad cashirka koowaad jabtarkan flowering plantigu waxa hoos imaanayo chapter contentska soo socdo oo ay kamid tahay structure of plant organism propagation seed formation and germination waxaanu baranaynaa anaga cashirkeena koowaad structure of plant organism structure-rada uu ka kooban yahay dhirta organada ay ka samaysan tahay structure of plant organism-ka cashirkeena maanta aynu baranayno hadduu ilaa yiraahdo by the end of this lesson dhamaadka cashirkani bartuhu waa inuu awood u leeyahay waa inuu explain sharixi karaa the structure qaab dhismeedka of plant organism organada ay dhirta ka samaysan tahay oo kuwe leaf caleenta stem jirida and root iyo xididka waayahay sidoo kale waa inuu ardayga awood u leeyahay inuu sawiro kadibna magacaabo structure gudaha ku jira geedka structure of plant organism the body of flowering plant dhirta wax leedahay wuxuu ka kooban yahay two main regions laba qayb muhiimka waa qaybtan sare oo aan u naqaano shoot system waa intan sare laga bilaabo caleenta ilaa iyo jirida dabcan shoot system waxa isku dhahaa jirida caleenta oo leaf ah sidoo kale waxaa la yiraahdaa flower ubaxa bud ruqurta kulli intaas waxay kamid yihiin shoot system waa inta ka sareyso ciida waxa kale oo dabcan ka kooban yahay root system isaguna waa qaybta hoose ee below the soil ciida ka hooseyso ayadana waxay ka samaysan tahay waa marka primary root ama main root xididka weyn iyo xididka farqaha ee ka baxaya ee lateral roots la yiraahdo ama secondary roots loo yaqaan sidaan sheegnay dabcan waxa ka kooban labadaas qaybood kadaynu bilaawno qaybta koowaad ee shoot system consists of stem oo ah jirida bud oo ah caleenta intaysan samaysmin ruqurta tahay node daqarka yar ama nabarka yar ee caleenta ka baxdo leaf caleentan flower iyo wax طبعا ubax kuma qaadanayno halka kan waxaan ku soo qaadanay fasaladeeni kale waxayna ugu ka bilaabeena bud waa maxay budku muxuu yahay budku waa is the region of the plant where leaves flowers grow waa halka geedka caleemaha iyo ubaxu ay ka baxaan oo marka hore caleenta taysan samaysan wax yar oo nabarka ah ku san examison tahay waxa jira two types of bud mid la yiraahdo lateral bud ama magacaan axillary bud waxa lagu yaqaanaa dhinaca geeska ay ka maxawaya leaves grow caleemahan aragnay ama laamaha aragnay waxa u horeeya ka sameysmayaan ayaa la yiraahdaa lateral bud waxa jira nooc labaad ee la yiraahdo terminal bud ama apical bud iyagu waxay ka baxaan caarada sare ee geedka dabcan halkaasi waxay nooga muuqdo inuu yahay lateral bud waa budka dhinaca ka baxayo ama axillary bud geeska ayuu ka baxaa waa kan waa halka kan lateral bud dabcan caleenta asal caleentan waxay ka timid lateral bud ama axillary bud waa isku macno terminal bud isaguna wuxuu ka baxaa jiridan wuxuu ogolaadaa inay weynaato waana halka uu sareeya caarada ayuu ka baxaa stemka ayuu ka qayb qaataa inuu koro oo uu weynaado node waa halka there is the region of the stem where leaves and buds arise waa halka ay caleemuhu iyo badhka aan sheegayna caleenta noqonaya halka ay ka baxaan waa nabarka dakhran halkaasi iyo caleentaasi ka soo baxda marka hore waa meel u diyaarsan meeshaasi waa la yiraahdaa node halkaana waa node kale sidoo kale waxaan ka fahmaynaa laba node inta u dhaxaysa labada node-ka iyo ka inta u dhaxaysa dabcan waxaa la yiraahdaa internode waa the region between two nodes laba node inta u dhaxeeyo ayaa waxaa la yiraahdaa magacaasi internode waxaa la yiraahdaa internode waayahay caleenta aynu u gudbaynaa maadaama shoot system uu ahaa stem iyo leaf caleentu dabcan waa qaybta cagaarani ama waa organka balantiga kaasoo muhiim u ah warshada cunnada u soo saarto is an organ of the plant that manufacture food waa tan cunnada u soo saarto caleentu shaqooyin badan ayay qabataa shaqooyinka ugu muhiimsan ee caleenta qabato waxaa kamid ah photosynthesis takes place iftiin cunto ku samaysiga ayaa ka dhaco caleenta ay ku samaystaa transpiration waxaa ka bax biyaha iyo luminta iyo ka samaysaa sidoo kale gaseous exchange waxay isku bedelataa labada gas ee carbon dioxide oo caleentu qaadato si ay photosynthesis u samayso
oo raw material ka mid ah maadooyinka ceeriin ay u baahan tahay sidoo kalena waxay iska saartaa oxygen oo iyaguna qaashisan u ah laakiin bini'aadamka faa'iido u leh external structure of the leaf external structure of the leaf muuqaalka dibadda ee caleenta caleen markaan aragno muuqaalkeeda wajida dibadda waxay yeelanaysaa jiridda waxay kaga dhagan tahay qaybta yar oo baxsan petiole waxaa la yiraahdaa petiole ama leaf stalk petiolku markuu gudaha soo galo ee weyn ee dhex socdo waxaa la yiraahdaa midrib midribkani waa vein weyn oo waxaa ku dhex jira salami phloem biyahana waa u qaadaa cunadana u gudbiya sidoo kale vein waa caleenta waxyaabaha ka muuqda ee feeraha ee dhex marayo kuwaas ayaguna soo kale biyaha iyo cunada u qaado caleemaha qayb waxay leeyihiin girgirahaas oo la yiraahdo margins kuwana waa smooth oo malahan oo sarsarmadaas malahan dabcan qaybta baabacada inoo muuqato waxaa la yiraahdaa weyn ee dhammaan gacanteenu meeshanu qabanayso leaf lamina ama leaf blade waa qaybta caleenta banaanka ee weyn caleentu dabcan marka u dambeyso afkeeda dhuuban ee caaradda ah anatomical aan ka hadlaynay waxaa la yiraahdaa apex ama tip waa caaradda sare ee caleenta halkani waxay kaga dhigan tahay jiriddi kanina waa nodka markii hore ka baxday guud ahaan structure-ka caleenta ee dibadda intaas ay ka samaysan internal structure of leaf caleenta guud ahaan markii lagu eego microscope waxay ka samaysan tahay qaybahan soo socdo qaybtan sare cuticle waa tuxubta meesha qaybta sare ee waxiga ama xabxabada ah markii caleenta la fiiriyo waxaa ku xiga qaybtaas sare ee cuticle-ku qaybta la yiraahdo hadda meeshan halka kani tan waxaa la yiraahdaa upper epidermis dubka sare ee caleenta cuticle-ka ka hooseeya oo ku xiga markaanu ka soo dhaqaaqno kan hadda sidaan shape-kan leh rectangular shape-kan leh cylindrical shape-ka leh shape-ka dhulubada dabcan iskuna dhow isbeysidan aadka isugu dhow leh waxaa la yiraahdaa structure-kani dabcan aadka idinku muuqdo waxaa la yiraahdaa palisade mesophyll waxaa jiro mid kale oo inaan lagu qaldan diideyno arday inay yaqaanaan oo qaybta hoose aan arki doono asagu waxaa lagu yaqaanaa dhibcahan yar ee ku jira waxaa la yiraahdaa chloroplast waa qandiyada laga helo maadada cagaariyaha ee chlorophyll dabcan waxaa ku badan isagu chloroplast waxaan dhihi karnaa actually oo qaybta ugu badan ku dhaco kan wuxuu noqonayaa sponge wareegani dabcan wareegsan shape-kiisa uusan qeexneen shape-kan kala duwan sida kan oo kale shape-kan oo kale waxaa la yiraahdaa sponge mesophyll wuxuu ka duwan yahay palisade mesophyll-ka ka duwan yahay waan arkaynaa mid walba shaqadiisa dhawaan ayaynu ka hadli doonaa waaye dabcan structure-kani waxa uu ka kooban yahay vascular tissues oo kala ah xylem iyo phloem dabcan hadda idin xadeeyo xylemka ama qoriga waa qaybta sare kaliya caleenta ayuu sareeyaa waxaa la yiraahdaa xylem waa qoriga waa qaybta biyaha qaado qaybtan hoosana waa qaybta mayraxda ah ee la yiraahdo phloem phloemtu iyadu waa qaybta caleenta biyo cunada markii la sameeyo laga qaado waa qaybta hoose waxaa la yiraahdaa phloem dabcan caleentu waxay leedahay lower iyo upper epidermisku qaybta lower-ka ah qaybta hoose kii hore la mid yahay waa dubka hoose ee caleentu dubka hoose ee caleentu way ka duwan tahay dubka sare sababtoo ah tan halkaasi waxay ku leedahay dalool waa halkan daloolkaasi waxaa la yiraahdaa stomata stomatadu marna way xiran tahay marna way furan tahay dabcan stomatadu inay xiran tahayna inay furan tahayna ama samaysanka stomatadu daldaloladaas yar ay shaqabinayn waxaa mas-uulka ah oo sameeyo ama xiro ama fura structure-kan muuqaalkiisu ay u egyahay sida keliyaha oo kale keliyaha or ama pin digirta oo kale magaciisa structure-kani dabcan waxaa la yiraahdaa gaarsel isagaasaana mas-uul ka noqon doona inay xiran tahay inay fudo tahay cuticle waa qaybta u sarreysa ee is a waxy layer oo lakab dhegdhega ama xabaga shaqada ay u qabatan waxay tahay prevent inay ka hortagto water loss caleenta inaysan biyo badan ka lumin haddii geedka biyaha ka wada lumaan ma helayo wax ku samaysto photosynthesis oo u baahdan sidaa daraadeed waa ilaalisaa waxa ku xiga upper epidermis dubka sare ee caleenta isagu lakabkani is a thick layer waa lakab dhumuc leh arrintaasna waxay ka caawinaysaa shaqadan soo socota oo ah protect
inuu difaaco the inner tissue nodayaasha gudaha ku jira inuu ka difaaco sidoo kale prevent inuu ka hortago pathogens in ay soo galaan cudur dhaliyaasha geedka ku saweeyo wax kamid ah fungi and bacteria iyo bacteria waxay kamid yihiin cudur dhaliyaasha uu ka difaaco upper epidermiska qaybta saddexaad waa palisade mesophyll shaqadiisu waxay tahay most photosynthesis takes place waa halka photosynthesis ugu badan ay ka dhacdo waayo chloroplast badan ayaa ku jira spongy mesophyll isaguna waa qaybta kale shape-ka aan qeexnayn lahaa shaqadiisu waxay tahay inuu keydiyo cuntada food storage haddaan ku sameyno isbarbardhig labada mesophyll si aan ku kala ogaano war maxay ku kala duwan yihiin kan koowaad ee ah palisade mesophyll isagu wuxuu leeyahay shape go-an oo ah dhululubadoo kale kan kalena spongy mesophyll kuna waa irregular in shape many chloroplast ayuu leeyahay kan chloroplast ku badan midkana few chloroplast ayaa ku yar intercellular air spaces banaanka u dhaxeeya labada mesophyll waa small kanina intercellular air space ka u dhaxeeya waa large waa mid aad u weyn oo position badan ayaa ka banaan qodobkan shanaad lawa epidermiska hoose dubka hoose ee caleentu waa qaybta hoose shaqadeedu waxay tahay inay ka ilaaliso ay difaacdo lower side of the leaf qaybta hoose ee caleenta iyadoo waxaa laga helaa stomatadu are tiny microscopic pores waa daldaloolo yaryar oo ishu qaban karin oo microscope loo isticmaalo ayaguna waxaa laga helaa lower part qaybta hoose ee caleenta of the leaf lagama helo upperka shaqada stomatadu waa inay transpirationka ka dhaco sidoo kale gas exchange-na waa uu ka dhaca oo carbon dioxide kii oxygen-ta lagu kala bedeshaa marna carbon dioxide galo oxygen-kan uu kaga baxaa structure-ka toddobaad waa guard cell waa cellskani waxaa laga helaa lower epidermisku guard cells ayaa la yiraahdaa ayagu muuqaalkooda are kidney shaped qaabka kilida ay u egyihiin ama pin shaped waxay leeyihiin qaabka digirta oo kale pin shaped structure shaqadiisuna waxay tahay guard cellsku inay hagaan maamulaan control opening in la furo and closing in la xiro stomatada in la xiro iyo in la furo ayay mas'uul ka tahay dabcan sawirkan waxaan muujinayaa waa kana guard cellka aan sheegayno waa waxaan kilida weeg ama pin shaped daloolkan dhaxda ah na waa stomatadan hadda waa open waa furan yahay kanina waa kana guard cellska dabcan labada dhinac stomatadana waa closed sababtoo waxna kama banaana waa stomata closed waayahay waxaan u gudbaynaa shoot systemka waxaa kamid ah stem markaan kasoo baxno leaf waxaa noogu xigo jiriddu waa qaybta ka sareysa dhulka waa qaybta sare usually above the ground shaqadiisuna waa inuu support ka taageero yani hold the leaves caleemaha kor u hay maxaa yeelay si caleemaha kani to get ay u helaan enough sunlight say photosynthesis u sameeyaan ila isku filan inay helaan ubaxana wuu hayaa ubaxa sababtu hay maxay tahay sababtu ah in uu soo jiito to attract insects cayaanka wax fahlo inay soo jiito uu arko banaanku waaye shaqada labaad ee jirida qabato waa inuu qaado biyaha iyo macdanta uu ka soo qaadaa xididada oo meesha laga keenay uuna geeyaa leafiska caleemaha looga baahan yahay si geedka cunno ugu samaysto sidoo kale shaqada saddexaad uu qabto waxaa kamid ah transport food cunnada lagu soo sameeyay caleemaha leafiska ayuu ka soo qaadaa to all parties of the plant wuxuu geeyaa dhammaan qaybaha kale ee geedka up qaybtii sare oo geedka kor ka xigta caleenta iyo down inta hoose ee xididka ku jiro ayuu gaarsiiyaa cunnooyinka waayahay qaybaha structure-ka muuqaalada gudaha ee jirida markaan dhambalno waxaa nooga soo baxay sida tan inuu ka kooban yahay epidermis dubka sare ee jiriddu waxay shaqo u qabataa jirida sida tan soo socoto prevent waxay ka hortagtaa excessive loss of water in biyo badan la lumiyo ka lumisa sidoo kale waxay ka hortagtaa prevent entry of pathogen cudurradayaasha aan sheegayna bakteeriyada iyo fungi iyo wax la mid ah inaysan gelin sidoo kale protect waxay ka difaacdaa the inner delicate tissues delicate means soft delicate waxaa laga wadaa structurada nodayaasha jilicsan inay ka difaacdo mechanical damage
dhaawac ku imaado muuqaalka hadda aan sheegayn structure-kan wuxuu ku sameeyay sida tan dubka sare epidermisku waa intan noo muuqdo green-ka ah epidermisku waa qaybta hadda ka sheekeynay cortex ayaa jirto ay leeyihiin jiridu cortexku waa qaybtan dhexe hadda waa kan halkan oo dhan qaybahan oo dhan waa cortex hadaan sheegaynay dabcan internal structure of the stem qaybahan oo ka samaysan yahay epidermiska iyo cortexka dabcan hadda sheegayno epidermis waa halka kan dabcan dhammaan kooda wareegsan dhaxdan hadaan soo galno qaybtan cad ee hadda anigu laakiin midabkan marinayo waxay noqonaysaa cambium cambiumku waa halka uu ogolaado geedka inuu weynaado ama uu sameeyo korriimo dheeri ah cambiumku dabcan waxaa kor iyo hoos ka kala xiga waxa loo yaqaan vascular tissues ama xylem iyo phloem xylem waa qorigan gudaha ku jiro qaybta biyaha qaado iyo phloem qaybta meeraxda ee cunnada waxaa la isku yiraahdaa labadan vascular tissues vascular bundles waa la yiraahdaa waa labada nude ee geedka cunnada iyo biyaha u kala qaadaan structure-koodana waa gudaha ku jiro dabcan dhaxdan waxaa la yiraahdaa bith dhuuxa jirida iyo taageera awood wuxuu siiyaa geedka cortexka aan sheegayno markii laga soo dhaqaaqo epidermiska waa nudaha u dhaxeeya vascular bundles and epidermis tilmaam ahaan wuxuu u dhaxeeyaa xylem iyo phloem ki iyo dubka inta u dhaxeysa vascular bundles waa vascular tissues way vascular tissues cortexku maxay qabataa jiridu u qabataa cortexku waa halka jiridu ay ku kaydsato cunooyinka storage-ka dabcan waa kan cortex intan cad ee dhammaan sawirkan kaaga muuqdo waa cortex wuxuu u dhaxeeyaa labadan epidermiska dubka sare ah cortexku labadaas u dhaxeeyaa cambium cambiumku waa layer lakab khafiif ah oo between xylem and phloem isagu xylem phloemka dhexdooda ayuu ku jiraa shaqadiisuna waxay tahay responsible wuxuu mas'uul ka yahay for the secondary growth of the plant geedka inuu sameeyo korriimada weynaada sanooyin badan 10 sano 20 sano 30 sano 50 sano iyo wax ka sare inuu geedku weynaado waa halka kan dhaxdan khafiifka ah thin layerka ah waxa la yiraahdaa cambium dhirta bisha geed ku dhimato malahan dhirta yar yari dabcan xylem oo ah qaybtan gudaha ee qoriga cambiumku waxa uu dhaxeeyaa xylemkii phloemka wuxuuna mas'uul ka yahay secondary growth in korriimada geedka uu sameeyo korriimo primary growth markii laga tago in secondary growth sameeyo waa yahay vascular tissue-ga hadda aan ka hadlaynay ee aynu soo dhahnay waa xylem iyo phloem xylem tissue iyo phloem tissue labadaas ay ka samaysan vascular tissue xylem tissue muxuu qabtaa geedka muxuu qabtaa jirida phloem tissue isaguna muxuu jirid u qabtaa dabcan muuqaal ahaan haddaan aragno xylemku waa qaybta gudaha ku jirta ee jirida halkaas waa xylem waa qoriga qaybtaan dhigi karno qashabka ee dhexda phloemkuna waa qaybta dibadda xigto ee meeraxda allixaa waa qaybta meeraxda ee dibadda xigto geedka cunnada u qaado shaqada xylemku qabto maxay tahay carry water and minerals macdanta iyo biyaha iyo waxa ka soo qaadaa from the roots to the leaves xididkii ka soo nuugtaa waxay geysaa caleemaha phloemku shaqadiisu waa inuu safriyo ama qaado caleenta waxa lagu sameeyo cunno glucose-kaas in la bedelo sucrose laga dhigo sucrose-kaasna from the leaves laga qaado caleemaha la geeyana to the all parts of the plant waayahay sidoo kale waxaa kamid ah structure-da gudaha ee geedka qaybta afraad ee ah bith dhuuxa jirida dhexbartamaheeda ayaa laga helaa waa is central tissue waa nudaha dhexbartamaha ka dhaco ee jirida ee geedka ka muuqdo xilligu helay biyo badan iyo lagu ogaado qaabka uu samaysan yahay jirida deal cross section loo jaro waa halkan dabcan qaybtan dhexda ah waa bith waa dhuuxa jirida dhexdeeda ku jira bithkaasina shaqada geedku qabto waxaa waaye jirida ayuu help caawiyaa and support stemka ayuu wuxuu siiyaa caawimaad iyo taageero waa bith waa dhuuxa waayahay waxaan u gudbaynaa qaybta labaad oo ah root system
waxaan ka soo baranay shoot system hadda waxaan usoo gudbaynaa root system root dabcan xididku waa underground part of the plant qaybta dhulka hoose ee ku jirta ee geedka ee af Soomaaliya u naqaan xididada shaqada xididku uu qabto waxa kamid ah absorption inuu soo nuugo water and minerals jirida inuu biyaha iyo macdanta uu soo nuugo la waxa kamid ah encourage inuu ku hayo geedka dhulka oo u noqdo dabcan bruisino kale salahan doonta markay badda dul sabeynayso waad aragtaa ma dhaqaaqdo hirka ma qaado sababta doonta ayuu hirka u qaadi waayo waxa doonta haysataa oo ku dhagan oo dhulka u yaal ku celinayo wax xarig adag ku xiran bir adag oo culus oo la yiraahdo af Soomaaliga bruisin saas si lamida geedkana uu hayaa storage shaqada kamid ah xididka uu qabto waxa kamid ah inuu wax noo keediyo food cunada inuu keediyo waa noocyada xididka types of root xididadu waxay u kooban ilaa 3 qaybood xidid la yiraahdo tab root ku dabcan waxa hal main root uu leeyahay xidid weyn kadibna waxa ka faracmayo kuwa yar yar oo lateral roots la yiraahdo noocaas hadaa aragtid waxa la yiraahdaa tab root waxaana sameeyo dicot dabcan kanina waa fibrous root waa dhammaan same way isla egyihiin bar bilowga iyo bar dhamaadka this one kan wuxuu leeyahay main root waxaan kala garanaynaa kan wuxuu leeyahay main root oo xidid weyn kadibna laga faracmay kuwa yar yar halka kanina uu yahay fibrous root kuwa dhamaan wada siman kasdaxad waa adventitious root dabcan waxa sameeyay salahan galeyda oo kale waa abnormal roots waa qaab meeshii aan la rabin meel aan ahayn ay ka soo baxayaan gudaha soo gudbiyaan muuqaalka gudaha ee jirida markaan ka hadlayno waxa uu noqonayaa xylem-kiisu maadaama xididkan ka hadlayno xididku waxa uu leeyahay primary xylem iyo primary phloem oo bilow ah oo structure-kooda muuqaalkan kanina hadda aan arkayno waa primary xylem kanina waa primary phloem secondary hadda dhihileen waa mid weyn oo noqon lahaa laakiin xididku way yar yihiin labadana waxay qabtaan isla shaqadii ay qabanayeen oo ah cunada kan inuu qaado phloemka dabcan xylemka hadda idin muujiyo wuxuu noqonayaa sidan xylem tissue gudaha markaan internal eegno xididka aynu dhambalno cellsku ka samaysan yahay internal aynu eegno wuxuu noqonayaa sidan dhibcahan hadda aan kuwan waxay noqonayaan iyaguna phloem rootka sawirkiisu marka xylemkii phloemka waxaan ku kala garanaynaa habkaasi xididka afarta gees oo kale u eg ayuu leeyahay waxa kale oo muhiim ah internal structure-rada gudaha ku jiro root hair gas xidideedku waxay muhiim u tahay xididka root hairs maxay qabtaan gas xidideedku shaqada ay xididku u qabtaan waxay tahay dabcan waxay ziyaadiyaan surface area oogada oo xididka intuu awood wax ka soo noogi lahaa in ka badan ayuu absorption sameeynaya arintaasna root hair maxaa ogolaanaya what adaptations of root hairs ka shaqada noocaas inay qabtaan maxaa ogolaanaya ko absence of cuticle maadada adkeed ee ilaalinaysa biyaha inay baxaan ma lahan arintaas waxay u ogolaanaysaa this allows diffusion of water biyo badan inay usoo dusaan oo process-ka la yiraahdo osmosis inuu dhaco simow oo biyo inay soo galaan labo shaqadaas inay qabtaan increase surface area waxa awood u siinay thin walled darbiyadoodu waa malahan khafiif oo mala masaafo dheer arintaasina reduce waxay yareynaysaa distance of diffusion-ka masaafada uu ka dhacay baahida diffusion-ka taasina waxay ogolaanaysaa in biyo badan ay soo galaan qodobka saddexaad ee u ogolaanaya adaptation-ka shaqaysa wuxuu leeyahay many mitochondria energy badan ee soo saaraysa ayuu leeyahay arintaasina waxay awood u siinaysaa in la safriyo biyo badan for transportation root cap xididka internal structure markaan eegno dabcan caarada sare ee xididka ee dhulka uu galayo wuxuu ku wataa afka hore koofi xidideed waxa la yiraahdo root cap dabcan xididku ku siiyahay halka koofidaas dusha ka saaran waxa la yiraahdaa root cap kani waa halka xididka hadhow ka difaaci doonto markuu dhulka galayo inuusan dilaac gaarin shaqada ay qabato root cap waxa kamid ah protect inay difaacdo the delicate tissue nodayaasha jilicsan of the root ee xididka this one markuu dhulka galayo koofidaas wataa koofidaas waxa la yiraahdaa root cap mar alaale markasta penetration uu sameeyo ee uu galayo dhulka isaga ka ilaalinayo dhaawac gaaro xididka guud ahaan wuxuu leeyahay 3 major parts saddex qaybood ee waaweyn ayay ka samaysan yahay meristematic zone oo loo yaqaan area of cell division
area of cell division sidoo kale elongation zone ayuu ka kooban yahay qaybta uu ka dheeraado jirida iyo maturation zone oo loo yaqaan iyadana sidoo kale permanent zone dabcan waa kana area of maturation meristematic zone waa qaybtan uu ku yaalo xididka uu ka jilicsan yahay meristematic sababtoo ah waxay ka samaysan yihiin meristem intaan qaybta cellskan jilicsan qaybta u horeyso inta waxaa la yiraahdaa area of meristematic zone waa qaybta uu cell division ka dhaco ka weynaado waxaa noogu xigo qaybta uu xididka kala baxo oo la yiraahdo area of elongation zone waa qaybta xididka uu kala baxo qaybta u dambeysa waa qaybta uu ka weynaaday waxaa la yiraahdaa permanent area ama maturation zone waa qaybta uu ka qangaaray xididka ka weyn yahay oo uu sameysanayo vascular tissue-gi wixii oo dhan ay ku leeyihiin meristematic zone dabcan hadayna fiirino qaybtan waxay mas'uul ka tahay cell division and growth in xididka uu qaybsan unugeed sameeyo uu bato uu weynaado hor socdo ayay mas'uul ka tahay meristematic zone ram halka ku jiro root apical meristems waxay noogu xiga dabcan waxay ka qayb qaadanaysaa responsible for cell division inuu dhaco and growth waa qaybta meristematic zone qaybtaas mas'uulku waxay ka tahay inuu xididka koro oo qaybsan unugeed ka dhaco dabcan qaybta elongation zone iyadoo waxay ziyadaysaa size-ka xididka inuu dheeraado ereyga elongation ka fahmeynaa maturation zone iyaduna waxay sameysaa specific tissues epidermis cortex and vascular tissue epidermiski aan sheegnay cortexki wixii oo dhan ayaa u diyaarsan root cells ayaa dusha ka sameeya